filimkana waxa uu ku bilaabanaya Rafael asagoo video iska duubay oo dhahayane waqtiga aan muuqaalkan daawanaysiin aniga waa dhintay maxaa yeelay waxaan helay qof siyaasi ah wax uu aad u jecel yahay waxaana suurtagal ah in dhibaato igu sameeyso mana iyo qof dhiibi doona sheygaas oo ka tagi doonane waxaan si wadi doonaa hoosh uu bilaabay Koose waxa uu bilaabaya inuu noo sheego in Koose uu haystay furo muhiim ah waxa uu nagishtay boorsadii uu qaadan jiray ilaa maalinkii dambe uu ka arkay booliis soo weeraraya gurigiisa wax uu ka baxay dirishada gadaale intaysan booliiska qabanina boorsadiisa waxa uu ku tuuray gaariga qashinka gaarigana waxa uu qashinka ku soo daadiyay meesha carruurta ay ka gurubsan jireen qashinka carruurtaasna waxa ka mid ah Rafael waxa uu helaya boorsada lacagtii ku jirtayna waxa uu u qaybinayaa saaxiibadiisa Jahid iyo kuwa kale boorsada iyo furahan asaga ayaa qaadanayo ilaa marka dambe ay ka arkeen gaariga booliiska oo meesha soo galay oo raadinayana wax gooni ah Jahiduna waxa uu booliiska weydiinaya waxa ay raadinayaan waxa uu ku dhahayaa waxa raadinayna boorso cadeen u ah qof dhintay dilkiisa waxa rabnaan inaan si dhaqsi leh ku helno qofkii noo keenana waxa uu leeyahay awaalmarin ah $1 Rafaelna waxa uu fahmaya in boorsada ay tahay shay qaali ah ee ka qaalisan tahay waxa lagu raadinayo oo ahna $1 haddii kale booliiska naftirkooda ma aysan imaan lahayn si u raadiyaan waxa uu go'aansanay inuu ku soo dhax qariyo meesha ay biyaha maraan waana meesha ugu dambeysay ee booliiska ay ka raadin doonaan Rafael iyo Jahid waxay aadayaan meelaha ay bulaacadaha biyaha maraan waxa ay halkaas kula kulmayaan wiil la dhaho Jibril waxa ayna ka codsanayaan in boorsada uu u qariyo bis Jibril waxa uu ka dalbanaya lacag badalka uu u qarinayo boorsada ayuu furaya waxa uu ku dhahayaa furahan waan aqaana meesha uu furayo intuusan u sheegina waxa uu kula heshiinaya inuu kalbar leeyahay lacagta la heli doono tariinka ay soo raacayaan si ay u arkaan sanduuqa ay lacagta ku jirto waxa jira wiil ku noolaa tariinka agtiisa oo bilaabayan inuu jaajuuso waxa uu arkaya ayagoo furaya sanduuqa booliiska ayaa arkaya maadaama ay joogaan bustajada waxa ayna bilaabayaan inay bursadaan carruurtan ugu dambeyntii waxay awoodayaan inay ka baxsadaan booliiska waxaasoo dhanna waxaa daawanaya wiilka waxa uu aadaya maamulhiisa si uu u sheego Rafael iyo asxaabtiisana waxa ay soo aadayaan meel laga heli karo computer iyo internet waraaqada jawaabta ay soo heleen ay akhrinayaan waxayna arkayaan magaca ku qoran inuu yahay jawaab Rafaelna waxa uu magaciisa ku qorayaa Google-ka waxa uu ogaanaya inuu yahay nin siyaasi ah kaasoo uu ololeynaya shacabka ilaa markii dambe laga qabto oo lagu tuurayna xabsiga wararka ku saabsan oo dhan ay akhrinayaan inta la arkin ayna meesha ka baxayaan saacadaasna booliiska waxa ay ku qasbeen carruurtii joogtay meesha qashinka oo dhan inay ku shaqeeyaan bis Rafael iyo Jahid ma aysan joogin askariga la dhaho Farid waa uu ka shakinaya waxa uu amraya ciidamadiisa inay soo qabtaan Jahid waxa uu arkaya saaxiibkiisa Rafael oo hortiisa lagu qabsanayo waxa uu ordaya Abu Jolier waxa uu ku dhahayaa booliiska ayaa qabsadeen Rafael si wadajir ah ayayna u aadayaan xarunta booliiska Rafaelna waxa uu hortaagnaa Farid oo weydiinayna meesha ay taalo boorsada maxay waxa uu hubaa inuu helay uu qarsanayane bis Rafael ma u jawaabayo nimanka booliiska ayaa qabsanaya gacmaha iyo lugaha ayna ka xirayaan waxa ayna gelinayaan shabaqa gaariga dhex yaalo darwalka gaariga booliiska waxa uu bilaabay inuu si xawaare ah ku wado oo geesa u wareejiyo ilaa marka dambe wajiga Rafael uu ka dudumay kadibna waa ay ka soo saarayaan waxa ayna hor istaajinayaan markale Farid hortiisa waxa ayna weydiinayaan boorsada meesha ay taalo waxa uu ku dhahay aniga waxaan arkay oo kaliya 300 oo ku jirta boorsada sidoo kalena waa uu diiday inuu wax kale ka sheego Faridna waxa uu ku amray askartiis inay dilaan Rafael ee ka takhalusaan kadibna meesha ayuu ka tagay ciidamadii booliiskana ma awoodayaan inay dilaan saacadaasna Abu Jolier waxa uu raadinaya Rafael meel kasta ayuu aadayeen mana awoodayo inuu u tago waxa uu saacadaas aaminay in Rafael la dilay ee u dhamaatayna waxa uu ku soo laabanay asagoo murugaysan meeshiisa ilaa maalinkii xigay subaxdeeda laga gaaray waxayna arkay Rafael oo lagu soo tuuray wadada si dhaqsi leh ayayna ku soo qaadayaan waxa ayna bilaabayaan inay daawiyaan waxa uu Jolier ogaanaya qisada boorsada uu haysto Jolierna waxa uu Rafael ku dhahayaa waa ina boorsada iska siisaa booliiska si ay dhiigaaga u badbaado bis Rafael waxa uu ku adkaysanaya inuu ogaado jawaabtaas waxa ay tahay iyo sida jawaabta qofkaas ay ku gelisay xabsi waxa uu tagayaa gabar la dhaho Olivia oo kamid ahna gabdhaha uu ololeeyay carruurta danyarta ah waxa ayna bartaa qoraalka iyo akhrinta way u tagayaan waxa ayna ku dhahayaan wax rabnaa inaan caawisid waxayna ku dhahayaan wax rabnaa inaan caawisid waxa ayna u alifayaan qiso been ah oo ahna wax rabnaa inaan galno xabsiga oo la kulanana Jahid awgiisa iyo abukaataha si uu uga caawiyo dhibaatada ay ku jiraan waxayna ku dhahayaan adiga ayaa lagu aaminaya oo naga qurxoon qofna kaama shakinayso Rafaelna waxa uu ku dhahay anigoo la garaacay waxa maqlay qof la dhaho Santos oo raadinayna boorsada saaxiibkan Jibrielna waxa uu ogaaday guriga Santos waana nin caan ah oo warbaahintan ay ka wada hadlayso waxa uu rabaa inuu isku soo sharaxo madax magaalada way isqaybinayaan Jahid iyo Olivia waxa ay aadayaan xabsiga si ay ula kulmaan Jahid awgiisa waana sida ay sheegteen Rafael iyo Gabrielna waxay aadayaan guriga Santos waxa suurtagal ah inay wax uun ka helaan Olivia ugu dambeeyay waxay awooday inay la kulanto awga Jahid kadib markii booliiska siisay laaluush maxay la jiyo qofna looma ogoon inay soo booqato Olivia waxay aaminsaneed in Jio uu yahay awga Jahid laakiin si Jio waa uu inkiraya wax uu ku dhahay been ayuu ku sheegay wax uu ku amraya inay baxaan Jahidna waxa uu ku dhahay aniga fariin waxa kaaga wadaa Koose marka fariintan ayaa kaaga wadaa walaalkaaga Koose waana in dhibaatada ay dhamaan doonto mar dhow Santoski xabsigan ku soo galiyna asaga dhawaan waa la xiri doonaa maxay dhibaatadii qiyaanada uu wada ayaa ka shifmayso fariintan aan ku soo qorayna waxa ku jirta sir gali karta Santos xabsiga isla waqtigaasna Rafael iyo saaxiibkiis waxa ay gaareen filada uu degnaa Santos markii ugu horeysay sarta ka soo boodayna waxa ay la kulmayaan ninka waraabiye geedaha Rafaelna waxa uu ku dhahay anigu waa baahanaa waxa raadinaya wax aan cuno asagana waxa uu ku dhahay meeshan ka tagay intaysan qofna idin arkin way dhuumanayaan waxa ayna bilaabayaan inay la sheekaystaan ninka waardiyeynaya geedaha waxa ayna ka ogaanayaan qofka uu yahay Santos ka iska la qasrigan gacantiisa midig iyo gacan yariisana inuu yahay Koose
Kose waxa uuna awooday inuu gurigiisa ka xaday lacag malaayiin ah iyo buug oo ribada iyo qashinka uu ku qori jiray ayuu ka xaday waxa uuna dhaxgeliyay qasaalad asaga la siiyay oo gurigiisa uu qaadan rabay qofna ma aysan ka shakinaynin midaas maalinkaas kadibna Santos waa uu waashtay maxayl waxa uu raadinayay Kose waxyaabihii uu xaday isla waqtigaasna Jahidu waxa uu xabsiga la joogay Jawawa waxa uu dhahay waxa jira sawir gadaashiisa ay ku qoran yihiin nambaro waana sawirka uu Kose ka hadlaayo isla markaasna Jawawa waxa uu ka dalbanaya askarigii waardiyana inuu buugga u soo celiyo uu akhristo laakiin askarigii waardiya waxa uu ku dhahay booqashada waa ay dhamaatay waa in ay imaataan berisi uu la hadashay ninkan markii ay baxaan ninka booliska waxa uu ka dalbanaya $1 si uu u tuso buugga caruurtii oo dhan habeenka waxa iskugu imaanayaan guriga Olivia si ay u raadiyaan $1 meesha ay ka keenayaan Olivia ayaa fikir ku soo dhacay oo ah in ay caruurta ka duubta video ay ku dhahayaan wax kasta ay og yihiin waxa ay bilaabayaan duubitaanka ilaa markii dambe ay ka imaadeen booliska maxay caruurta kale ay raadinayaan waxaana soo amray sida Santos maxay waxa uu ogaaday cunug yariis ah inuu ku soo booqday Jawa xabsiga weyn uu cadaatay in xiriir la leedahay lacagtii iyo buuggii laga soo xaday askarigii Fred la dhahayna waxa uu fatishaa guriga Olivia waa uu soo qabanaya ayada si uu u baaro caruurtiina waxa ay ku dhuumanayaan gurigeeda korkeeda askartana intaysan ka tagin meesha qashinka waa ay gubayaan waxa ayna gubayaan guriyihii u dhawaay waxa ayna isku dayayeen inay buugga wada kasta ku helaan iyo sawirkii ku dhex jiray oo gadaashiisa ay ku qornaayeen nambarada Jibril ayaa waxa uu dhahay aniga ayaa wax sameeynayo waxa uu aadaya guriga Abu Jaliyar waxa uu ka soo xaday lacagtii taalay askariga waardiyana waxa uu yaqaan kaliya wajiga Jahidu waxa uu ku bilamiyay meel ka baxsan xabsiga si uu u qaato lacagta uu u siiyo buugga waardiya marka koowaad uu lacagta ka qaato oo buugga siiyeen waxa uu ka shakinaya inuu qof kale la socdo Jahiduna saacadaas waxa uu soo baxsanaa mid wajiga ayuu ka qalaya waa uu ka cararaya waxa jira boolis waardiyana meesha oo la ogaanay sheekada askariga waardiyaha waxa ayna rabeen inay qabtaan caruurta waxa ayna isku tuturayaan buugga ilaa marka dambe ay ka baxsadeen booliska waxa ayna ku dhuumanayaan guri aan la degnayn waxa ayna isku dayayeen inay xaliyaan xirxilaalaha nambarka ay ku qoran sawirka gadaashiisa Rafael habeenka dhan waa uu soo jeeday waxa uu raadinayay xirxilaalahaas jawaabtiisa ilaa marka dambe ay ka helaan nambar cusub oo u eegna nambarka taleefanka waxa ay ku qorayaan darbiga isla saacadaasna booliska waxa ay ka raadinayeen meel kasto ugu dambeyntiina waxa ay soo gaarayaan gurigii aan la degnayn oo ay ka tageen ayaka mar hore askariga Fred la dhaho ayaa soo galay waxa uu ka dhex raadinaya ayaka waxa uu arkay sawirka Kose oo gadaashiisa ay ku qoran yihiin nambarada waxa uu fiirinaya nambarka ku qoran darbiga waxa uu ogaanaya inay tahay nambar taleefan waxa uu bilaabaya inuu waco sida Rafael uu u wacaayo oo kale waxa uu ogaanaya inay tahay nambarka qabriga waxana qalbigiisa ku soo dhacays in lacagta ay ku duugan tahay qabrigaas caruurtii oo dhan waxa ay si dhaqso leh ku aadayaan qabriga markii ay tagaan waxa ay bilaabayaan inay raadiyaan qabri ay ku qoran tahay Kose ama wax u eeg midaas ugu dambeyntii Rafael waxa uu tagay qabriga biya oo ahaydna gabarta Kose laakiin hal mar waxa uu arkay biya inay gadaashiisa taagan tahayba Rafael waxa uu isku dayayaa inuu dejiyo waxa uu ku dhahay maxaa ka sameynaysaa qabriga ayadana waxa ay ku dhahaysaa waxa uu aabihii ugu dhahay inta joog hadii aan ka soo daaho anigana waqti dheer ayaan sugayaa Rafael waxa uu ku dhahay inta iska sii istaagsanaa inta caruurta kale uu yeerayo waxa uu bilaabay inuu raadiyo caruurta kale ilaa marka dambe uu ku arkay qabriga biya meel u dhow bis caruurtii kale waxa qabsaday Fred waxa uu gacanta ku watay biskoolad Rafael ayuu weydiinaya meesha ay taala lacagta asagana gacanta ayuu ugu tilmaamaya askari Fred la dhahana waxa uu caruurta ku qasbaya inay gacantooda ku jabiyaan dhulka ayuu ku tuurayaan sanduuqa waxaana ka soo daadanaya lacag tira badan saacadaasna biya ayaa ka imaanaysa Fred gadaashiisa asagoo u jeedin ayuu waxa ay ku soo tuuraysaa shay culus dhulka ayuuna ku dhacayaa gacantiisa ayaa biskoolad ka dhacaysa Rafael ayaana si dhaqsi leh ku soo qaadanaya waa uu ku taagayaa Jahiduna waxa uu bilaabay inuu bir ku qaraaco Fred Rafaelna ma awooda inuu xabad ku dhufto laakiin waa uu garaacaya intaas kadibna waxa ay qaadanayaan lacagta waa ina ka cararaya meesha waxa aynu go'aansanay in buugga laaluushka iyo khiyaanada uu ku qori jiray Santos inay u dhiibaan Joliar maxay asaga iyo Olivia ayaa yaqaanaan sida ay ku sameyn karaan maalinkii xigeen caruurtu waxa ay soo qaadayaan lacagta waxa ay iimaanayaan meesha qashinka lagu daadin jiray waxa aynu go'aansanay lacagta qayb ka mid ah inay u daadiyaan dadka meesha ka shaqeynaya oo lagu qasbayn inay raadiyaan si ay bedel ugu noqoto guryahoodii la gubay iyo daalkii ay mareen qaybtii ay lahaayeen ay qaadanayaan waxa ayna ka tagayaan wadanka Olivia waxa ay u tagaysaa Joliar waxa ayna weydiinaysaa sida ay ka yeelayso buugga iyo muuqaalkii ay ka duubtay caruurta waxay go'aansanay inay wax kasto ay hayaan inay qadka internetka dhigaan waxay dhigayaan muuqaalkii caruurta ay ka duubeen internetka uu faafaya wax uu isku bedelayaa mowduuc ay dadka dhan hadal hayaan waxa ayna noqonaysaa in la soo qabto Santos iyo magac kasta oo ku qornaa buugiisa sidaas ayna caruurta ku guuleysteen ayna ku heleen wax kasta ay rabeen waxaan arkaynaa ayagoo ku nool xeebta oo ku raaxaysanaya noloshooda waana meeshii ay jeclaayeen weligood inay ku noolaadaan waxaana la joogtay biya oo ahaydna gabarta Kose muuqaalkan waxa ay qoray Kabtan Maajid waxaan codiyay Cabdulxaliim Cali waana aniga waxa habeeyo oo dhidkareeyeen isla Kabtan Maajid haddii aad ka shahayloobin inaad muuqaalka like saartid YouTube-keena qolaasada filmadan aad subscribe saartid si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan soo dhigayno filimkana magaciisa waxa la lahaa Trash waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xigo maca salaama